أما النبي النحور وأما الأربعة اللواتي ربه في النار من النساء أفرت الليري وفي النار نعوذ بالله من النار مد كوبات فامرأة وهويني بديئة اللسان عرب دير قيرب بدن حام بدن اسكو دردر بدن يا واحد كحشون أنجري بديئة اللسان على زوجها وقور ننك يضب ما أتأن حشمينين وعرب كذا كإيرانيين فاحشة الكلام بالله وقبل هذا الكحول نينك وحي كدوري ملها وحوض الحن أي كدوري ملها وحيلاد لا خير فيك وخير كأركب ملها وخير كأركب ملا بيلاد وحمان أو قفل ضحي كإيرانيس ملها هدون نينك هذا مقيها أو سفر أو آد أو مال أو آدو نفط هذا ما إيرانيس أمين كاب الرجل شيء كيسي يبحثان وحن في عينين بيجري hadduu joogana arabkiisa maartay arabka ma dhawrto hadduu maqanya isma ilaaliso hadduu joogana arabka ma ilaaliso oo ma dhawrto gabadha labaad oo maartay gabdhaha ehlu naarka oo nabigeena uu sheegay waa haweenay ninkeeda ku kallifta wuxuu heli karin oo dhaaqa iyo awoodba u hayna kan biilka waa inuu intaan noqdaa guriga waa inaad iga badashaa موبايل نوعه وأنا صاقدا أربح نوعه وأنا تكنتا داب أنت وأنا إيجادا هوانك واحد يكون صار أركتبه أيوة ولا صوت أنت ولا صوت أنت لو واحد حد يلا هذا شر النساء يا خير النساء ونن ربادية وكشيكي شر النساء يا خير النساء مربى روتي دونا قبل إنك واحد يكون كلفي وحن أول لا يكلف الله الناس إلا وسعها qofka wuxuu awoodin ilaahay ama ku kalifin rabb subhanahu wa ta'ala cibaadaadki baa waxaad kar kartaan la imaada marka qofku wuxuu ilaahay ku og yahay oo tan iyo duruuf ah inaan laga badbaadinin oo qofku wuxuu keeni karin la dhaho keen marta qofku waa inuu duruufta iyo danta uu ku jiro aad ugu dul qaadataa ilaan duruufta waa geedka labadiisa hoos qofki shalay waxa haystay maanta wax la'aana qofki maanta wax la'aan haba bari wax haysta marka duruuftu way isbedbedashaaye inaadan maarta radul ficil aanan sameeynin ninkaada wixii duruuf hayso aad ugu kaalmayso oo garab ku siiso oo ma aragtay ku garab istaagto ku dhiirigeliso oo tiraado waa laga bixi doona salafku waa garanaysan haweenka salafku waxay dhigi jireen markuu guriga ka baxayo wargaajo haddaan u adkaysan karaa xaraam oo ma adkaysan karo niya wax xalaal ah noo soo shaqee haddaad weysana iska soo laabo waa gabdhii ilaahay ka cabsanayeen way gabadha saddexaad waa gabar aan nafteeda aan ka asturin ragga gurigeedana ka baxda iyadoo mutabarrija ah oo qaawan iyadoo caariya ah qaawan jirkeed wax uu asturan jirin ka baxdo raggana aan iska asturin hadday tan ragga in gacanta lagu salaamo in ragga xabadka lagu salaamo in ragga gacmaha la haysto in ragga lala sheekaysto la dhaxgalo yaani ma artay xijaabkii ayagii ragga u dhaxay jaraan waa gabar nafteeda aan ragga iska asturin gurigeedana ka baxdo iyadoo qaawan gurigeeda ka baxdo sidii gabdhihii jaahiligi oo kale gabadhaana waa gabdhaha nabiga nuxuur sallam ee naarta ku jiraan nabiga sallam gabadha afaraad u dambayso waa imra'atun ليس لها أو مسجنا هم إلا الأكل والشرب والنوم وجبر النقد هم جدا محد عنتا يا محد عبتا يهردون دقن غير وبابا المهد ويضيعين نينك هذا وضيعين صلاة ده سوق على أنا بحا ما يشرق صلاة ده يجوا أمين هو قرعدان أي إيمان نينك هذا وحو إيمان أسقط ضيعان سقط ضيعان وسوق عنين مريء أنا سكت تصنين قبو si iskaga maartay buu iimaan limaada hamigeeda waxa weeyaan cunto iyo cabitaan iyo hurduun hami inta dheerba ma qabto xana gabadhana waxa la rabaa reerkeeda iyo dhaqankeeda gabdhahanaga Soomaaliyeed Allah barakeeyo waa gabdha aad maartay ugu fiican reerkooda iyo dhaqankooda aad ugu fiican laakiin waxa la faraska waxa usha loogu dhuftaa inuu dheereeyo hadii dadku ay gabdhuhu wada fiican yihiin sifaadkan la sheegay inuu ba soo geli inuu ba la heli dadku way fara badan yihiin ragga hadii ayaga inta in leeg baa laga heli wakadalika dumarkana waa sidoo kale afartaana nabigu wuxuu alayhi salatu wasalaam wa fi nar